kulanti wacan daawadayaal akhyaarta faraha bulshada nagala socoto meel walba aad joogtaan galab wanaagsan qodobada warka aadiheennana waxaa ugu waaweyn faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho ra'iisul wasaare Rooble oo soo gabagabeeyay socdaalkii uu ku joogay magaalada Kismaayo isagoona isla maanta u ambabaxay magaalada Garbaharey waxaad kaloo dhegaystayaal warkeenna aad ku maqli doontaan hadduu aabe idmo taliyaha ciidanka 14 Oktoobar oo lagu dhaawacay qarax maanta ka dhacay gobolka Shabeellaha qodobadaas iyo qodobo kale ayaa wararkeena kaga bogan doontaan halkani waa Nation FM